Alif College oo ah maxadka bixiya aqoonta caafimaadka ayaa munaasabad u qabtay dufcadii koowaad ee ka baxday dugsigaasi oo dhan in ka badan 60 arday kuwaas oo bartay midwifery iyo nursing. Munaasabadan oo ka dhacday hotelka Cafe ee magaalada Burco ayaa ugu horeyn wax faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha Alif College Baashe Aadan Farax. macallimiinta dugsigaasi ardayda qalin jabisay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen xildhibaan Mubaarak Bidhi, xildhibaan Cabdilaki, gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda New Generation, isuduwaha wasaaradda biyaha gobolka Togdheer, waalidiin iyo barsaab ku-xigeenka gobolka Togdheer ayaa si isku mid ah hambalyo ugu diray ardayda qalin jabisay. aynu u hambalyeyno ardayda maanta ka qalin jabisay kulliyadda caafimaadka ee Alif. dhammaan ardayda ka qalin jabinaysa kulliyadda hambalyo. waalidiintana waxaan ku leeyahay socodka aynu maanta ay halka ardaydu soo gaadhay inaynaan kaga waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan ardaydan ka wada baxnay caafimaadka dhamaysanay muddada soo wadnaan ku guulaysanay dhammaantoodna hambalyo leeyahay. waa inaad ka duwanaataan qofka aan waxba aqoon oo jaahilka ah oo qabyaaladda iyo kala qoqobka iyo amni darrada intaba ka wada inaad u noqotaan hormuud u noqotaan oo intaba aad ka qabataan gacanta insha Allah taala dhammaantiin aad baan u mahadsantihiin aad iyo aad baan farxadayda la qaybsanayaa aad iyo aad ayaan u faraxsanahay. Alif College ayaa noqonaya maxadkii ugu horeeyay ee si gaar ah loo leeyahay isla markaasina bixiya muddo 2 sano aqoonta caafimaadka. Maxamed Mataan Gabalaax, Ariel TV, Burco.